بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن مeel kasta aad joogtaan soo dhawaada. waxa aan caawa la caweynaynaa waxoogaa la caweynaynaa Cabdiraxmaan bin Cabdullah bin Xaaji Dabcasar البربراوي ayaynu muxuu la caweynaynaa insha Allah oo yani muxuu ahaay khadka telefoonka inoogu jira ama khadka WhatsApp-ka inoogu jira. Cabdiraxmaan hadda wuxuu ku sugan yahay Imaaraadka, gaar ahaan magaalada Ajmaan ayuu joogaa Cabdiraxmaan. marka insha Allah waxa weeye waxaan doonaynaa bal Cabdiraxmaan inuu ina maqlayo hubino. Cabdiraxmaan, assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وريها قيمة يقايا عليه الصوماليين ولكن عرضون يلمان دغستيال قيمة يقايا عليه الصوماليين ملك استود عالم كجوكتان با هبين مالين قرب صباحتي دين تاي ودمانتين وسلامتين ولكن مسكين كاله او idin le walaalyaal waan dhawahay waad maasatahay waqtiga aad nasiina sidii inaan maxaa kula wadaagno cawayskan. عبد الرحمن طبعا وحوي waxaan doonaynaa bal deynaan ku wareysano xoogaa yar waana sii socotaa sida maxaa ka warhayo oo haweeye waad tagi doontaa insha Allah. waxaa kaloo jira Facebook baa jira aad feedkii ka soo gashay khadka oo haddana hawada maxaa ka maqan. arrimahaas oo badan baan maxaa insha Allah iyagana maxaa ka wareysan doonaa. waxaan doonaynaa bal inaad noo soo koobtid. طبعا xarig baad soo martay. waxaa noogu kaa dambeysay muuqaalkii Hargeysa aad ka duubtay gudaheeda adoo yani goor aroora hodheelkii aad hurday jiifa oo mobilkii toos ugu jira oo albaabkii lagugu soo jabiyey. kadib intaa wixii ka dambeeyay bal noo waran halka xaal maray. عرضون ودي دغستيال قيمة يقايا على ندغسريه انت ندغسن دونتبا دمانتين ولاليال إلهي سبحانه وتعالى ان هذه شرفو انا جاي يدين كان هاي نغدغو كو إلهي وكتل معمي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هو هذا كدغستا او كيس في عنقاته واسنا وكوا إلهي هنو شيء وعقل عليه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اخلاص يدعى من الله نور زاقو يرون يهدي لك كدما إننا كفوقانو إننا قولا فعلا با قف مسلمة أنو مارتي قوتا وربعينك أن قدر منه يقالبا لكن وحينو شيغنا هم شيغنا وعب شيغ قف كوني مانتي وحويان هدي أطرفتو إن لغنعو حق الشيغ رنت الشيغ مركا إن شاء الله تعالى خب كنا قوين حنقونا يا إن شاء الله وهم iyo hadal toosan insha Allah ta'ala oo ka fog dhacdac iyo qalooc. ugu horeyna waxaan ka cudur daaranayaa Soomaali weyn meel kasto ay joogaan wax allaale iyo wixii khalad iga dhacay walaalayaal anigu Hargeysana tagin Mareykanka ka soo socda ayaan idinka codsaday cafis baqdin iguma kalifin wax kale iguma kalifin aniga oo Ilaahay ugu dhawaanayay inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonkiisa aan noqdo ayay u kaliftay. marka walaale Mareykan waa ninka soo kicitmay ujeedkii wuxuu ahaa dalkaas Ukraine inaan muddo 2 bilood aan joogo dalkaas Ukraine. ujeedada aan raadina waxay ahayd in aan hadii la ku idmaayo halkaas aan gabar muslimada aan ku guursado oo dadkaas muslimiintaas ah. si kastaba haddii markii aan Mareykanka ka tagay xagga aan tagay si fiican baa la ii soo dhaweeyay. kalibiyaan ka soo duray waa aragteen si fiican oo sharaf leh oo karaamo leh ayaa la ii soo dhaweeyay. gabdhihii baa la ii bandhigay laakiin wax iga hor yimid waxay ahayd meesha luqadda lagu hadlayo waa luqadda Ruushka iyo luqadda Ukrainka oo aan aqoon oo inta Ingiriiska taqaana ay iska yar tahay koob iyo manaakh ama environment-ga ama hadii la ku idmaayo qabow ka cararo qabow kala u cararo noqotay dhulkaas Siberia ka dhao meelaha adduunka ugu qabow weeye. saas ayadoo ay tahay ayaan waxaan la kulmay laba dhalinyaro ah Ibrahim ila la yiraahdo oo Isaaqa iyo in la yiraahdo Xasan oo besh wiya
إبراهيم هذا الغياب من السنة يوم أنا أقوليان أيه يقول تري مقالة هرجيسة إن أنتوا وأن سواء قناعي أتبرتانو كمان دقين عرّ الريحان كمان دقين عرّ أدلة قد ما يودي لما أنت روك لأن ما قبيل والبر على متاجتين قوف نوات شهدين عرّها ويانا كمان دقين عرّ وقادين كمان دقين عرّ مجرتين كمان دقين عرّ حوالنا كمان دقين عرّ برقدرنا كمان دقين عرّ الحوينا كمان دقين عرّ شرير يشلع مننا كمان دقين يدر waxaan doortay inaan u imaado oo marti u noqdo meeshii deegaankii aan ka imid oo weeyalkay ay ka yimaadeen barbara ilaa dhulkan waqooyi Hargeysa Burco beesha Sheekh Saxaaq duriyada Sheekh Saxaaq inaan marti u noqdo waxa ii dheeray anigu cafis weydiistay oo walaalayaal cafis baan idin weydiisanayaa kaltan siyaasadeed ayaan ku daray waliba hadduu musabixi hadduu wax fahman weeye oo wax garad u yahay weeye hadduu jabaadayntii waagii hore ahaa iyo rag iska dhici iyo rag xanuunji iyo xoog baa waxtara ay tahay iyo qori caaradi dee taa waa baabti yani taasna meel ma gaarsiinayso waana midda ku khasaaray waxaan soo iri inta waliba ammaanay musabixi ayaa haddii la gudmaayo fallaagadii oo dhan ana u qurxinaya asaga oo nin u haystay yani yaqaana ragga in maaragtay la iska harmaamo xataa wixii ay ka sheegeen musabixi ayaa maaragtay fallaagadii iyo mucaaradkii oo dhan ba cabs u fidiyay ayaan horay u siiyay anoo kaftamayaan magaalada Kiev caasimadda Ukraine waxa ka soo laawar Muuse Igeey anoo ordahay anoo Dubai Soomaaliya laawar Muuse Igeey hadii la gudmaayo waqooyi oo dhan ay lahaayeen waa lagu geynayaa waa lagu geynayaa marka Muuse Igeeyadii waxay dhalashay gawadnaga هذا قصد السودي بو حتى مركز واحد بيا صلابة يقول له هذا الشعب اسمه مدي ويجي ولا قاعد بلاي والسودي وما تسكم من هو يلدرجة تدبي قال لنا عردونا وحي حوا يرى أن مارته إسكت كفته بيجري أو تقولني ما هاي حقيقتي أرونا أن درسنا يدرتنا عن كرينين هرينا أنا وين كرينين لكن إلهي أنا وانا قضي محاضرة دي ورسي أو مركي أنا hotel كرون تجنينه أن شيء أو عيد ولا على الصومالي وين يوكل مية طوبطة طريقة توصل يطبط توصل إلى قاضي ويحورنا أنك وانتوب على كل أرجيس أيام كسودجي الشرف له أو كرامة له أو علم له أو نصب نماء أي اللي يوصلويه اليردي اللي عقد تقولي بان كورهيا أقول هذا لها هذا ارتقاء كودين بدل العيرية موسى هذا دقن كسي جبادين تهالي مدو حق جبادين وحنا أقول وحنا آخرين أقول أنا بانكوارك إيربوركا وكاني هجي أقوليها كايو ماشي تتكسر دوين هين هدي لك ما هيو يعني قاركود العيشي إيربوركي كارب العصبة اللي جيت يسود دوين صرف لبن أنه عالم كأي الصومال وين وقبر يرجيسه لقى مهيو ما القروح بطن وين أنت حقيقة دي يعني من هو إنسان نتاي قاية له شرف له كرامة له دد نصب بما يجوان إسلام مركبة وحيد اللي يرى يصوب النجان إن أنك غيب غاتو حفلتي على مسارك موسى waxaa dhacday in kaarkii ama tigidadii ay ka dhamaadeen laakiin xafladda banaankeeda iyo wadooyinkii oo xirnaa ayaan soo bandhigaya dilaa gudmaayo iyo wadooyinkii oo xirmay iyo farxadda ummadda ka muuqatay raynrayntii dadku ay wada farxsanaayeen inkastoo dee qaar naxsanaan ay jireen dilaa gudmaayo oo dee laga guulaystay oo iska dareemaysa dilaa gudmaayo inkastoo baashu sideedaba adduunyada tan lacag iyo laaluushi mooshin iyo balaayo iyo kushubasho iyo iska jiraan adduunyada tan hotelkii waa tii la ekeeyey hotelkii marka laga soo kaxeeyey waa tii la ii kaxeeyey halkaasi makhaayadda diiriye ee sharafta leh waan u mahadnaqayo يعني حفلتي بوسكيدي يعني عقال international airport oo inoogu xigtay makhaayadaas aad garanaysid diiriye halkaasoo awlalkii aan caalamka usoo bandhignay iyo caanihii iyo timirtii iyo barwaaqadii iyo nabadii iyo jacaylkii iyo marxabayntii iyo sidii sharafta lahayd oo Coldono la soo dhaweynay halkaasoo ay Coldono meeshii aniga adigu aan ku qorannay waanigii adil ay gudmay halkaas ku sheekaysanay isku salaamay ka bacdina walaalihii hotelkii yani Crown iska lahaa waa kuwii ayuuna ku farxay imaatinkaanaga waliba beesha yani aadna aan u amaanay oo beesha Sacad Muuse ay isku xidhiyiin ay si sharaf leh ugu soo dhigeen waa inaga halkaas tagnay hadii la
la ku idmahayo gabadhii iska lahayd hinda ay si sharaf leh ugu soo dhaweysay iyo maamulkii oo ay dhaheen cunno cabitaan chief qolkii ugu quruxda badnaa ay dejiyeen annaguna halkaas aanu ammaantii Hargeysa iyo hotelka quruxdiisa iyo sharaftiisa iyo wanaagiisa yaanu tilmaaminay waanagii ka soo galnay live-kii koowaad oo halka ka soo galnay oo isku wareysanay sababta ujeedada aan u socdo oo ahaa calamarsaarkii labo in maaragtay carruurtayda oo meesha degan oo dadkay iyo degaankii aan u imid ehelkay reer Hargeysa carruurtayduna meesha ay joogto xumaan iyo niyad xun iyo qas iyo qaalaase iyo qaybin iyo fitno iyo isku dir midna aanan walaal u socon halkaa ku cadaynay aad iyo aad ugu maasantahay adiga tiimkaaga oo sharaf la ii soo dhaweeyay dadkii Hargeysa oo aad u farxay يعني ماشي حتى أن كل الناي وأن كفترناي وأن ورئيسي أن اللايف أن قال لي حتى رجي صوت على مي أو جبهتي كتر سنة هالكاس أنا سكون مرحبا إنه إن الإهل نهاي والصومالي نهاي ومسلم نهاي ولا نهاي وحكي صوت داعي لمن كيس هيستي عيدنتين شيل كمان تجوان اللعب هي عقدة أنت لقب هي لو لعبوا أعمال إسقاط صدق أنا حال مرن أن أوبا قيس سوماليين الحال مري ولا لا يريار جيسة حسوق اللوجستي مقدور بحيو إلهي لقب كان خلادات كده عي واحد كستو ونكسن أن سوب النية دي لا يكون معيو ومضى نسيش شرف لو كرامة له ولا لا سوري سريني علماء الدين كوانيك بقى قدري أو إن ولا لا يعني علماء وايدين إيمت واحد يكون عصنا يا إن مارت دي لا يكون معيو إن ولا لا السودوين أدين مجسام inkastoo qaarkood ay text message iyo maartay ay yani dugsiyada quraanka iyo jaamacadaha iyo masaajidada ay dhalinyaradii iyo dadku u dirayeen oo ay lahaayeen ninkii ka sheekeyn jiray casharada iyaga ah baa meesha soo galay wakaas laakiin culimadu ma ahayn waxa dhibka abuuray ee Etoobiyaan iyo cadowga gaamuray ee ka naxsan barwaaqada iyo horumarka ummadda ayaa walaal dhibka ka dambeeyay ala kulli masaajidadii waaniga aadnay calimataan سوقيدي مال والبواتي ودون في حرمايين أو طبعا سر يجي يقصور موسى بوال المام مرك هرمان كي موصل المامي وحفلت دي بقى يسوق الشيء إن طبعا سر يجي يقصور طبعا سر إيو ضدك ملك الاستاجية لو هي رب السياسيين قار كودا سيكون عكرتا مسكين كان هلا إنه هرجيسا كل راح يصير يو قدام الشاطئ يو تيردان يسودوين تار يتعايل كان لو مجنون سيكون عكرتا dad baa ka naxay marka arrintaas oo Ethiopia koob ka tahay inay gaar ahaan liyo booliska dadka dabaqoodiga ah dadka wadaniyiinta nacab dadka maarta roosheega nacab ayaa jiray rooc iyo naxdin ka qaaday walaal gaaliya hotelkii marka waa tii aan ku soo noqonay lagu qanciyay xafladda markii aynu yani inaan ku qabsano hoolkii weynaa oo ilaa kun qof deeqay aad ka u weynaa oo waliba $2,000 ahayo gabadhu iyo maamulku ay في سبيل الله يوضحين لعقنا لو ما قلين ماشي او مال سو والله طن خير بيريالك سو كرو $2 يصدق دول ما هنا فري بي هدي لا سكوبرتو او لا سورستو مسكين كاله بقول شاد الصومالي لو سو دويو ما دام دغان كسر اي تahay انت كور سد غرانيسيد موسى دو عقل ليهي دعايات بنسمي موسى وانا دي لا قد مايو موسى adoo baa la socota dilay gudbaayo gabay iyo amaan iyo wax kasta iyo wardeeniga noo doortaan iska gaftabeen Muuse Ilaahay waa kii u doortay hadda waxa ahayd hal jazaa ul ihsan illa al ihsan campaign manager-ka iyo ragga tartama iyo $100,000 iyo $100 milyan baa lagu bixiyaa ninka ku taageera man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u fa in lam tukafi'u fad'u Allah marka Muuse taankii inuu dhayahay laakiin Muuse oo aqoontiisu ay iska yartahay siyaasadna aan u bislayn ayaa waxay keentay in xoog adeegsado hadii la gudmaayo I don't know ma dadka qaarkood waxay leeyihiin ragii laga guuleystay ayaa xarigaagii ku yani xumeynayay Muuse laftiisa oo aan fahmin sida qiyaasyo haday taasoo dhab tahay على كل هوتيل كي واتيلا حفلتي دقيقة دون ولا لا كنسلي واتي مارتي يعني حتى أن درناين أي جزء على جولين يحبس يو دبقل يسردون يعني مدر عدا يهنجش يبلايو يلي بوليس يو دبقودي يأمحارو يو التجرية يا الأوراقو كل هذا يكون ما هذا ما من هي أرجسنا مرخاتي بكين دل يردي تجريها 90
91 hargeysa ku dhashay ama joogay luqadda way ka badiyeen maanta luqadda farqooyin ku hadlaya waariyay ku leeyahay waarday dawaakan deewaanka deebaxaday waxay galeen qaybihi kala duwanaa dekadii ayaga haysta aeroboorradii bay ku jiraan saraakiisha ugu waaweyn bal xataa waxaa laga sheegayay ciro oo aan Soomaali weyn ay lahayn waa nin wadaniya in saraakiisha waardiyeysa ragga ugu waaweyn ay Oromo yihiin oo la yaqaano marka waxa weeye meel kasta waxay ku sameeyaan galitaan booliiskii iyo nabadgelyadii iyo hangastii meel lagu soo tababaranay oo territory-ga lagu siiyay waa la garanayaa waa yani Ethiopia oo qof يعني مرة نرجس كليه وقروي وبصاصه وقربه عبد الرحمن وين عبد الرحمن وين عبد الرحمن وسمراب وقبلد عبد الرحمن وين وحن دولنا وكسماية وحمر كلي إذا ما وحوص عبد الرحمن من مغليسة من مغليسة سفيان عبد الرحمن وفلقينتا iyo faahfaahinta iyo inaad ereyga ka tiraahdiid oo aad sifooyin kala bixisid gadaal ka dhigo waxaan doonaynaa kaliya si taxan inaad muxuu su'aashan ku weydiinayno aad ka jawaabtid insha Allah halkii ku soo noqo hotelkii aan ka bilowno kaliya teeda labaad waxaan ka codsanayaa Cabdiraxmaanow waxaan ka codsanayaa shakhsanada ama shakhsiyeynta يعني aynu ka baxno Muuse waa sidan iyo Faarax waa sidan iyo aqoon buu leeyahay aqoon ma laha aynu iska dayno waxa adiga muhiima inaad ka hadashid haday dhibi ku soo gaadhay dhibtii ku soo gaadhay iyo cidda ku geysatay saasay igu dhacday kaliya kaaga filan inaynu maanta oo dhan aynaana kani waa Fariid ama kan waa Naas marka kaliya waxaad ka sheekaysaa marka waxaad ka sheekaysaa sheekadii sida u dhacday baa aad u muhiima واد ما صنطاي هوتيلكي ملك الرويال وانا كبحني كراون كبعدنا وقحة وانا يغطقني هوتيلكي حفلتنا كو قبصني رويال آد بنوم بحسيين ولا راح اسكالة حافظاس وان جعل إني دقان هبري يونس هوتيلك اسكالة خير الله سيا يغني هوتيلكي حفلتي بردونو الدوينة لقد داوني بغلال كون واقف عيد داوطي si life loo daawanayay hargeysa wanaageeda iyo nabadeeda iyo habeen lagu qabanayo ilaa 12 la gaaray oo aadan ciidamo amisama aysan joogin aadan baqaynin aan soo bandhigaynin xataa markii xafladu dhamaatay askartii anigoo la sawiran aan soo bandhigayay heeganka ugu jira difaaca dalka iyo dadka iyo diinta yani ciidankii oo labisan isla sawirayay dhalinyaradii gabdhihii wiilashii wixii marka waxa weeye ayaa loo adkaysan waayay walaalnimada islaamnimada kulliga Soomaali waana Irishman ina Soomaalinimada wax laga cararana maaha sharaf waatii noogu dhamaatay habeenkii koowaad subaxii waxaan dareemay isbedel in maaragtay ciidamadii ay weerar ku yihiin hotelkii laftigiisii ay ku qanciyeen inay la socdaan inaan ka bixi karin hotelka in markaan xataa aan dareemay inaan xabsi guri ku jiro inaan hotelka markaan ka baxayo ay maamulkii raacayeen oo ay lahaayeen soo noqo ay iyagoo xataa in naxayo tilmaamaya in dariiqa yaan lagu dilin laakiin dariiqa waxay igu dilayeen askarta bay ahaayeen oo ii taagnaa si indirectly ama toos ah inay igu tilmaamayeen dad xun baa jiray islaali joog ha bixin hotelkii baan ku jiray carruurtayda oo xataa meesha igu timid ma dareensiin ordonow adigoo mahadsan iyo dhagaystayaalka qiimaha in ciidamay ugu hareeraysan yihiin يعني قرآن برخصني إلهي بمبرني وانقذيني ما شاء الله صبحي وحي وصل بغضي ضيال قرابة أو ماشى دقن ودقن كل شيء بيوصل بغضي حتى ضيال قريبة كلا دوان بيوصل قبيلوي كلا دوان بيوصل بغضي الشرف هي دلينيرو نبضونو دومر بيوصل بغضي حرور طيبة يتمد ما شاء الله يعني وحي أركان meesha aan deganahay iyo guryaha quruxda badan iyo sharafta aad hatta ma dareensin in ciidamo igu hareeraysan yihiin ehelnimada iyo dareensinayay inaan cudad iyo naxdin aan tusay dilay gudmaayo si fiican baan madaxa iyo meel walba carruurtayda dilay gudmaayo Cabdiraxmaan oo subaxii albaabka lagu jabiyay nooga sheekay aroornimada halka ka bilow markaan yani inta ka horta habeenkii hadda hargeysa quruxdeeda waa anaga habeenkii soo bandhigaynay subaxii marka walaa laga caliyay waa aniga adigii isu nimid
jiraan waa ani adigii live-ka wada galnay adiguna xamar baad u socotay halkaas haddii ilaahay ku idmaayo aad ii dardaarantay inaan iska ilaaliyo wax kasta oo maaragtay dhibaato keeni kara aan ku weydiinahayay ii qaad aldoona heestii xamar aadisteedii miyaa laygu xirahayaa inkastoo aan xifdisanayn adiga kuslaayay waxbaad dareensanayd anna waa dareensanaa waana wax jira bay ahaayeen ninka hoteelku waa kii naga cudur daartay waa naga ka baxnay adigu waa dooftay rag dhalinyaro ah oo tiimkaagiia ayaad igu wareejisay sharaf badan waan soo baxnay waxaan aadnay hoteelkii walaalaheen ciidagalo waa ilahaayeen ama loo yaqaano haddii laga gudmaayo magac buu leeyahay inanka iidu iska leeyahay dariiqa intaan maraynay ayaa waxaan dhalinyaradii yidhi kaalaya aan qadaynay haddii laga gudmaayo kaalaya aan qadaynay hotel caafi la yidhaahdo carafaad ayaan tagnay nimankii meesha lahaa markay arkeen aad bay igu farxeen 14 kuug oo carootay baa iska leh suu ii tilmaamay ninku oo maasha allah makhaayad aad u sharaf badan oo rag aad u sharaf badan ay leeyihiin oo yacni aan lagu gaarin hilibka geela karintiisa makhaayadii bay marka waxay iga codsadeen inaan u sameeyo xayisiin advertisement xayisiinta baan walaala galnay banaanka gudaha hilibkii quruxda badnaa barwaaqadii horumarkii waddooyinka nabadda iyo bayaan ku qabanaynay magaalada wanaageeda sharafteeda karaamadeeda ehelnimadii laga soo dhaweeyey halkaas ayaa anoo marayna ayaa dilaa gudmaayo ayaa dhalinyaro meeshii joogtay baa ila hadashay oo qaarkood lahaa waa hoballo oo xidiga ay ka tirsan yihiin soomaali weyn oo dhan baan u duceeyey soomaali weyn allah barakeeyo meel kasta ay joogaanba dad iyo diin iyo dunyo درجة الدنيا بدأ أخرب الله سيو عدو الله كقاضو نبكى الله كقاضو رفاتك الله كقاضو وحكوا عن سلسلة يا عردونو وحياليه انتي لايف كي هراء انكشيكي مرة ايا وحاجري انكشيكي لمن كان عاقدها قضاء او يتوبيان او بدل دها او قريها تواسيستها او قريها هور مرمرة ايا انكشيكي لمن كان سرو خطركوا دالكا يدادك يدين تبا ايدس فافيا اغدا باعو كانسر laga qaado faafiya taas waxay kicisay ciidamadii Itoobiya iyo sirdoonkoodii ayay waxay u arkeen khatar inay ku tahay amniga Itoobiya iyo ciidamadan doonayay inay qabsadaan Soomaali weyn waxa 2016 kii waxa jiray nin wasiiraha wasiirada ciidanka ka batay qabiil walba caalam u taagtay dawladda ku sheegtay Puntland ama hadii ay gudmaayo walaalay reer Garowe in nin wasiirkii amniga qaranka haystay uu ku dhawaaqay in nimankan dalka laga saaro nimankan la tarxiilo nimankan la joojiyo bacahan kasarka laga qaado iyo qurunka iyo jaajusnimada ku jiraan ninkii usbuuc ka bacdi ayaa shaqadii laga caynay anigana waxaa la ii diyaariyey in la dhoofiyo oo xuduudda Itoobiya laga gudbiyo xuduudana ma ahane Soomaali galbeed oo xaaraanta Itoobiya ay ku haysato in laga gudbiyo ayaa la qorsheeyay marka taas mudaakhalo ayay ahayd oo tilmaamayo sida haddii la ku idmahayo dhibaatada weyn waxa keenay aniga dhibaato ima geysan hergeysa walaalahay beesha asxaab dad goba sharaf leh karaamo leh deeqsiin leh aliyaa geesiin leh wadaniyiina xalal qoota ah dalkooda dadkooda iyo diintooda jecel anigoo dalkayga yimid oo deegaankayga yimid oo uyaalkay deegaankooda yimid si fiican ay soo dhaweeyay martidana dad aad u soora ah hase yeeshee cadow baa meesha ku jira walaal gaaliyan si kastaba aatee makhaayadii ayaa nimankii buluusa militaar ahaa anugu dee askarihii xilligii dowladdii maxamed siyaad barre madaxdii soomaaliyeed oo dhammaantood allah u naxariistee ama cigaal ama cabdiraxmaan tuur ama cabdullaahi yuusuf ama ciidiid ama cigaal ama siyaad barre dhowr nin oo isku lool ahaayo kursi isku qabsaday bay ahaayeen dhibna ma jirin dadku kursi waa la isku qabsan jiray marka ummaddu isma nabcayn kursigaa la isku qabsaday baa keenay in Itoobiya iyo Kenya iyo balaayo iyo reer galbeed iyo cadow iyo reer bari isku keendiraan oo jabaadaya la sameeyo oo dawladdii burburto oo dadkii colaad ay kala dhex gasho la sii galo haddana maaragtay insha Allah taala bala ma jirto awalna ma jirin dad jecel bal haddana waa la yahay wax kale oo jira ma jirin wala la gacali marka waxa weeye waatii marka askartii halka ay nagu soo weerartay anigu marka waqti kaamar oo qabatay waridaaya war beesha walaalayo warnakan iga qabta dadkii baa qayliyay kursigii baa ku noqday iyo kuruskaygii iyo haddii la gudmaayo hilibkii iyo barwaaqadii على كل ولا يقدر يمد خاصة بلا يقدم تلفونكي لباس كريبة تمد
إلى صدق غفوان داوريسي كثيرات باللي كنا شيء دربي من حلي ساري نجي تليها ما أكل زوج تاجر فيها بق تك تك باد يعني بينات ما أنا بقول باكس كلايش حنيها نبك مضح يعني حتى الشيء يقولوا حنا قلنا سيد بدك نفط الله وقع هذا عمل له جدله قف كان أيضا ديك دبيعي كتاعدم إن ديك جدهيس أو ديك جديس أو قالوا شلتيس هي مسكحتيس أو كفرمه ستروك وكقاله أنا ديك بابا جاي من اخترت يوم اللي جايو اخترت مركي اللي جايين هذا قراء يقدر بجارتي يدور كي جاي هدي لا يكون ما يو لقوم طيران يو ماذا حاجة عدول بواوج جدي إلى عندنا حنون كي أنا يقول يالله على كل هوتيل كي بتجي ولا لا هوتيل كي هدي لا يكون ما يو هدي عبسي بناها ولا يك لا تجي مركي لا يك لا تجي هدي لا يكون ما يو أيان واحد البضي داو يضد مارة الطبيبة ماشي بال يقول هدي لا يكون ما يو داو الله يوك يعني قرتي يو مدحي هدي لا يكون ما إسكاسوين الله يقول طوبي قاركود هدي لا يكون ما يو يعني روايات يوها بكسمايا إن أنا أسطورة أيو أنا هدرتان قف أن حقها استو يلعن على السي يمال يو الدنيا يمقدو من مجرته إلهي بانوي على كل أنا وصاص قصور أيام كليب طوبي إن دبرت اللي يجيستي إن رفادي جاري إن يعني شوحني جارتي إن أربعة عن هاي وحن سوى هاي مرك وراء لا وحن سوى هاي علماء يقول لي قرتدا يا قويا ندي يا دخاترتي إلا يمالو أو اللي يرالي قلين دونه اللي حال مريض دونه اللي لما عرفتي دريمي دونه دبك عن دريمي شفتي اللي يجيستي عن قرصونين أنا هم النقيا قاري سبغلها على يقطوري أما قاري أسكرتا نكي يقصو دجيي لما النقيو أن جعل يقدمي كحيان كهرقيسي عاقا وينه إلهي خير هذا السيو دلين يردو حيالها كفر هيا هرقيسا إن دلين يردو أي مامل كي هيان إنكستو هذا مارتي لغا حيوبيه دلين يردي ومارتي الأضيال مارتي بينات يقول اللي أردية ماشي لغا سو بوحيي marka walaal dibkii markuu dhacay anigu baqdin aaban marka habeenkii iska seexday subaxii ayaan waxaan ka war helay dadku waa khayr baa ku jira ahlu khayr baa ku jira in weer lagu soo yahay oo lagu soo socdo oo maartay ay dhacayso xataa in amar laga haysto Itoobiyaanka in meesha lagu kharijiyo oo been la sameeyo inaan dagaalamay ama inaan hadii la gudma ciidamadii la dagaalamay ama inaan xabad isku dhuftay qorshahaas baa la dishay walaa la waan ka warayay ilaahay baa baad iskale Soomaaliduna waa dad isjecel oo maartay isu naxariista oo bulmiga isku raacin daraareergeysa waxa dhacday marka ayadoo saasa waati subaxii live-ka markii aan galay ummadda iyo caalamka baan tusay in aan weer lagu soo yahay waati walaa la gacaliyay aad daawariseen gurigii lagu soo jabiyay gurigii markii lagu soo jabiyay سير يدرباح يعيبه يدهراتي على سوق يدري دولك اللي يوسف شيدي أنا جو سيدي مارتي اللي بيقول عيا قيرنا هيا اللي يسوي شيدي واحد اسكت حتى مارتي يوم يشيد هيا على الأقل إداية على الله يقص عليها هيا دري سيد مارتي عيبت أي سيد مارتي تدخل صواكب هيا وقلت هيا داري يقطورين waxaa la geeyay xabsigaas waxaa la ii sheegay rag badan baa meeshaan ugu yiri ninkii ilka qalinka lahaa dheeraa meesha ay gelinayay nimankii kale meeshaan rag badan baa ka qalin jabiyay baa la yiri wasiiro badan baa lagu jirdilay lagu xiray waxaa lagu xiray meeshaan ayda buur madooba maxaa magaciisa ah biisa ayaa loo saray halo boqor buur madow baad ka wadaa meeshaan xataa ka soo qalin jabiyay baa la yiri haddaan kuu sawiro waxay ahayd meel dadkii oo dhan waa laga saaray anigaa la geliyey waa kaneeco saxaradii meeshaad seexanayso iyo saxaradii iyo kaadidii iyo kaneecadii ayaa meesha isdul saaran joodariyaal iyo dustayaal iyo meel ay yaallaan ma ahan maakado yaryar baa meesha yaalla
kaadidii baa dhinac walba kaa jirta saxaradii baa dhinac walba kaa jirta kaneecadii baa sumuumaysa waa dhismayaal qadiimo oo dowladdii hore ee dhacday 91kii wax ka dambeeya aysan jirin marka halkaasaan ku jiray Ethiopian iyo balaayo jinni iyo meeshii ugu yimid waxaan codsaday war bal cuntada la ii keenayo in laga ilaaliyo Ethiopianku inaysan meeshan igu sumayn waa u jeedaa Ethiopianka inaysan cuntada sun igu darin ayaan codsaday haddii la gudmaayo waan u mahadnaqayaa xeraalyaha guud oo meesha igu yimid habeenkii anigoo meel cidlaa jiifa oo kaneecadii iyo saxaradii iyo qurunkii iyo baktigii dhex jiifa igu yimid aan u sheegay maxaan galabsaday iyo dambiga aan galay haddaan dib kuugu noqdo askarigu markuu madaxa iga garaacayay ama bayna ila dhacay qoriga ama haraatida wuxuu lahaa oo caayay Soomaali weyn erayga Soomaali weyn baad ku hadashay hargeysaad ku celcelisay Soomaali weyn askarigu halkuu kugu garaacay halkeebuu kugu garaacay waa ninkii maqaayadii Carafaad Soomaali weyn ayaad ku celcelisay ayuu lahaa baad ku celcelisay buu lahaa marka waxaa la igeeyey qol yaroo nimankan dambe baarista baa la igeeyey waraysi bay ila yeesheen waraysigii markay ila yeesheen maxaad igu haysataan baan idhi maxaan dhibay baan idhi maxaan gaabsaday baan idhi ma waxaad igu haysataan wax intaanan hargeysa imaanin ummadda Soomaaliyeed dhammaan cafis weydiistay kalsooni baan halkaan u yimid geesnimo anigoo qabo oo dadkayga korsoon baan u yimid ehelkayo dadkayga waa ikana xalaala iyo wixii iga dhacay cafaliin masaabax baan idinka dalbanayaa taas baan u yimid taas hadda qofka hadduu yimaadane damantaaba taaba allahu calay qof kuu soo noqday oo kuu yiya kasoo qaad ma lahan marka walaa laga caliya dad baa jooga oo media qaarkood isticmaalaan ayaa cajaladii soo bandhigay hore oo ka dhigay wax cusub si kastaba haatee wax laygu sheegto waa la garan waayey ama wax maxkamad laygu geeyo hadba waa la geeyaa su-aala lay weydiiyaa markii dhammaan waxaan idhi maxaad igu haysataan baan haddii laha gudbaayo maxaad igu haysataan anigu baan idhi casharo salisaytu la yidhahdana waa ka sheekayn jiray haddii lahay gudmaayo Soomaali weynna waan aaminsanahay su-aalii la weydiiyey waxaa ka mid ah cabdi ilay waxaa la weydiiyey Ethiopia waxaa la weydiiyey haddii lahay gudmaayo يعني شط صوماليا وحاس انت تقول هي سعد لي سومالي وين هذه لا يقول ما إثيوبيا هذه لا يقول ما انا واحد ما قرصونا سومالي وين من ام سنه صري ام سنه بعد ام سنه اني حروض او دغالمو او الدفاع ام سنه بميستر اسك ساران ام سنه عدو ولا اسك ساران ام سنه سومالي مدودان ام سنه سومالي سعد سنه ام سنه سومالي اسكو ديك دعان دين دقن ربي النبي وحول بسيين ولا لبان عفيان وحيد عي حلي دليك النقدان من آمن سنهاي ضد مسلمين يهي من آمن سنهاي مقر صدو مركا وحاان كو إلي نمانكي وهالكان إثيوبيان هنا يسرا يدبخيو دايان قرية كتجعلان أو قلعس كل يهين أنونا حبسي أكجرو وحار يكريعي يكادي أدحجيفو إهلو صومالي هذه لا يقولون محقبة ورأريتو لقوي بيده إيمان القريب أنه أمر بان السيد دقوي سعب بيقولها عردون إذا استيال قديمها يقايا له ماشا إثيوبيا أيا هدي لا يكيد معايو أمر كيدو كسر على هدي لا يكيد معايو أنت أمر كيد لما رأي السؤالي عندي إلي أي ويدين أيان إيو هدي لا يكيد معايو إثيوبيا أيا وحام في رأي مغلع إرنميو أنا أما يديلا أما يحيرا أما سارة طريقية ناعي يعني سؤالها نوعية يعني هذا فافاهين نوب فافاهي عبدي لي محل قهوة دينية إثيوبيا محل قهوة دينية سيدي يعني سيدي محل قهوة دينية بكم وحل يودينا هي أو أدينا يقول ما يليري عبدي لي يلي بوليسكا إيو أدينا يقول ما إيو استراتيجي شو ده يدك هذا الشيء إثيوبيا يدك هذا الشيء أو تلمانتين يحيصته بدها دكلها هرجيسة برمج مرحو دلك أردن بإثيوبيا بايستان بدكون عليسي أنت سهل يقول هيستي الصومال وين بدكون عليسي أنت سولا لقى عليه وحنا واحد سكون حرام هرجيسة يجروا يبصمرهم يبلدوينه يحمر يكسمايا يجرا يبار
warqad yar loogu dhajiyo meeshuu doono buu yiri gabadhuu doonuna waa shukaansadaa meeshuu doonana waa maraa qofkuu doonana waa soo xirtaa qofkuus doonana waa dila marka walaa la gacaliya anigu waxaan ogaa baan ka sheekeeyey waa Itoobiya isballaarinteeda iyo burburinta Soomaaliya iyo qabiilada ay u qaybinayso say isugu dirayso hujabaada ay abuurayso maamul kastoo dhismaba ay ridayso meel ay raalli ka tahay aysan jirin xeebaha iyo dekedaha say ula wareegayso wax qarsoona ma ahayn dadka meesha joogo waxay ku qanacsan yihiin anigu kama hor imaan lagama maqlin haddii ay gudmaayo kanuma jirto iyo kaas ma jirto dad aan isku diray meesha ma oolin calaa kullin markii wax laygu waayey ayaa waxaa Ethiopia ay ku talisay in Ethiopia Airways flight la ii jaro oo Ethiopia la ii dhaadhiciyo ayay ku talisay hase yeeshee waa la iskhilaafay sidii qalbi dhawax oo kala ka dhacaysa la yiri waxa la yiri marka aan Ethiopia u dirno Ethiopia halkaas kala wareegto oo hal loo diro arsalo halka hal looga diro hadii la tarxiilay tigidhka waa la jaray hadda waxaan maxaad ii diraysaan tigidhkaygu wuxuu ahaa halkan Hargeysa Imaaraadka Dubai Ukraine United States of America ma khadkaas ma ahayn baa madaxamar ii dirtaan haddii la gudmaayo ala kulli Djibouti baa la ii diray Djiboutina waa la igu xiray sardoonkii ciidamada Ethiopia diyaaradan waa nala saarnaayeen Ethiopia Airways in halkaas diyaaradooda in laga saaray ahay ilaahay ma qadarin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa fashiliyey Hargeysa la igu soo celiyey Hargeysa markii la igu soo celiyey aniga wiilkaygii ilaahay xifdiye iyo caruuraha Soomaaliyeed oo dhan bay gabadheeda iyo caruuraha oo dhan bay caruuraha muslimiinta oo dhan baa Allah xifdiye xaara iyo ku kaayay masaay Allah ka xifdiye aeroboortka saa markaan uga soo degay ayaa si naxdin leh wiilkaygii hortiisii la igu jeebeeyey askar aad moodid يعني كوي مريم بالصقلانة سكوار جا قبتين أو قريها أي حريين هي الموجود إلا سوق قبتي قال كوينا إلا سوق قبتي الموجود حبس أيام أيدا دعسية أسمونا البورية أو كايلا الصحراء يدحيالان أو أنا كشري لبما الماضي يا بين أنا كشري مركي دمنا ولا كاوي دي يتيم كاجي سكة سبعة ولا لا maxaa la idinka weydiinayay su'aalaha lagu saabsan aniga iyo asxaabteeda iyo Coldoon iyo asxaabtiisa maxaa lagu lahaa waxaa la ilaa Coldoon meeyay xagee uu faqaday xagee uu aaday xagee waa ugu wartambeysay maxaa idinka dhaxeeya yaa soo dhaweeyay saa ku timid hadii la gudmay ujeedadaadu maxay wax nacnacay weydiinayeen هذا ولا النما إسلام نما يدل نما يسومال نما يسوكي نما يو أبوان نما أيام كوبرناي سومالنا ولا لا كوبرناي ضد مسلم وسجال غير أيهين وحان أن أمسنا قرب جود أمسنا لا دلاد يو قبيلو يربني فلان يدر يدارود يزاغ يا ويا يجرع بين وحا سكك عوي وحكجر مجران قبيل كاجي ضد كاجي يعني الشرف حتى مضر إن قبل حتى الله يسوع بدقيه أن يعني أن كوتشري كلام دور الشغل هذه لا يبد ما حتى هي أتوقع أنا أقول أني قبل جامعيار أو شرف بدر فولنتير أو ذلك يدك يدين توشقيه أو ما شاء الله حجابا أو قرآن حفظ السنة ما شاء الله يعني جمعية هذا خير كله إلى أي بركة يا رجينا إن شاء الله إن قدر يا عالم كوي السماء وين بقى أي مالتي سمدنا سم فلك يعني لقول لك رب قلي دور مساكين أتكلمينيس ما تعودونهم أدوه قرنيسا صبحي بقى لقصة صاري ماشى كنت مركي سفير ردي أمريكا كدبلوماسيينتي يا أخوي هندي أمريكا كو كعدون أي سمايان الشعب ويني صوماليات نخبط جارسيين قولي الشيوخ ده يسنة الرجلي يسيتي كونسل كي يبوليس كي يلو انفورسمنت كي أي جارسيين sawiradaydii sidii maaragtay la igu weeraray labadii hotel oo live ka ahaa taas waxay keentay in maamulkii Trump arrimihiisa dibadda uu ku khasbo in muwaadinkaas Mareykanka ah degdeg loo raadiyo ciidamo sirdoona safiiro diblomaasiyiin ayaa airportka yimid xabsiga yimid amar ku siiyay in laga soo saaro meesha taas waa shock igu noqotay Coldoon in salaada aan tukano اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم كوا قدوا عيسنه حبسي
Soomaaliya ay iga soo saareen walaal la gacaliye nin Soomaaliya ay iga dhicinayaan amxaar xuna urayo uraga iga dhicinayaan diyaarad soo saareen oo documentskoodii iyo waxoodii ila soo bixeen ituseen ay dheen welcome back soo adoo nabadgelyo soo noqo waxaan kaaga nimid halkaas ilaa Asia ilaa Texas ilaa Mareykan ilaa maaragtay Khaliij al-Arab ilaa meel walba ayagoo kala duwan madaxda waxaad sheegtay inay ahaayeen madax Mareykana oo isugu jiray safiiro iyo madax diblomaasiyiina oo ka shaqeeya danaha Mareykanka dibadda xagee kugu yimaadeen xagee ku raaceen walaal la gacaliye xabsigii markii nimanku ay yimaadeen waxa awshii laga wareejiyay nimankii askarta ahaa niman dhalinyaro oo يعني international wall la shaqeeya ayaa loo dhibay farxad baa bilaabatay waxaa bilaabatay helnima bilaabatay marka aeroportka yimaadeen xataa diyaaradda Ethiopia lagu talagalay la qaado waa joogtay Ordon Ethiopian Airways marka nimankaas diblomaasiyiinta ah ay ugu yimid diyaaradii baan isla soo raacnay waa ila soo fariistaan kursigii si fiican bay ugu sharaxeen magacaygii bay hubsadeen adresskaygii bay hubsadeen East Columbus Franklin magacaygii kulli way arkeen baasaboorkaygii waxaygii ilan safe ay bay arkeen jukastoo ku soo gaartay iyo dhaawac ku soo gaartay insha Allah waa daaweyn iyo wax kasta wada helaysaa dalkaaga ku noqay ugu dheen marka aniga waxaa xadid ugu noqotay in walaalahay Soomaaliyeed oo amxaar xun oo uraya oo naftiisa uraala ah يعني أراجع يتقرأ كأمر قادنا يوبد يقرده سو ولاك غيرك وأنو صامعين بداية أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤمن إن قال ويقبل بعدين هاي ولا لا قاليه أيان حدين يقول نقطي وحكسوا ترى أيربوركي دبي مش صدقت عادي كجلا أي كجلا اللي يمجلين مش مدحوليالك يتقول مسيين تو الباب أي كجلا بل يجليه nimankii carabta waa bayaabeen nimankii waraaqoodii bay la soo baxeen sharaf baa ku soo galay waa arkeen haddii la gud maayo halkaan markii hore ay sii marayeen niman haddii la gud Soomaali oo jawaasiisa ayaa aeroportka nimankii imaaraadka igu diray ayaguna haddii la gud maayo waan u aqli celiyay waa markii aan duubay dhalinyaradii la tarxiilayay ninkan internetku wax ka sheegay bay dhaheen hadda waxaan sheegana waa badaha iyo dalka iyo dadka iyo diinta in la difaaco لكن أنا مسلمين تقدم بإمارات السعودية عيد والبوالله وانا دتك وانا جعلي إلى حفظيه Soomaaliya dalkooda iyo dadkooda iyo danahooda iyo badahooda iyo birigooda iyo awoodooda xor bay inay difaacdaan cid walba oo wax wada qabsi iyo ganacsi iyo horumar iyo wax isdhaafsi iyo walaalnimo iyo islaamnimo doonaysana dawaa wax fiican ma xub walaalaha yana inay Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliya hadda anigu wala soo aqal celiyo wax fiican waana ka hadlaa laakiin ayagana waxa la jeclay barnaamij iyo nabadgelyo iyo horumar iyo ibaaki marka nimankii saasaba walaale Ordon yani meeshaas ku fashilmay ilaahayna ku fashiliyay waxaan xasuus mudan Ordon inta xabsiga ku jiray ay ka buuxeen dad badan oo wadaniyiin ah kuwa quraanka markay akhriyaan xabsigu isla gariirayo ad ilmeynaysid hadii ay ku idmaayo ama CDda America ay ku jiraan taas aad baan uga nahay intii aan ku dhex jiray ciidamadaas iyo xabsiyadaas waxay ii sheegeen in dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo koonfur iyo waqooyi iyo Soomaali galbeed ba ka kala yimid laga dhoofiyo waxa loo jaraa go home Ethiopia ma laga dhigay inuu Ethiopian yahay waa Ethiopian tarxiil baa loo qoraa si la tarxiilada kale waa la diraa waana la dhoofiyaa marka waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun أنا أرجيس وأبلكي ودقاكي بربرة ودقاكي وذي ساعة وصل مغلسي ولا سدد جركة عجدة مع البوليس وأنا بربرة ويا ونوصل نقول دونا إن شاء الله وحوي بدن بدرون دون تعاوى وكوريسان دونا وحن دوننا بالإيلة جبوتي أيا لجو قاضي ديارة باللجو صاري وترحيل كي هراء وهري جبوتي محل سعودي أما جبوتي نوغا ورمو جبوتي ماذا دلبضي سيجارة جبوتي او دلبضي إن لغو جاية محا سادعاي كدب ولا وحوها أمر دبر بالليل شقول بوها مملكة إثيوبيا
iyo Jabuuti isloog yihiin waxaan ilaahay ka baryayaa Jabuuti inuu ilaahay waardiyeeyo ilaahay nabad siiyo ilaahay barwaaqo siiyo cadowga haysta oo Itoobiya ay ka tahay iyo kuwa kalena ilaahay ka dulqaado xor uu ka dhigo geesinimo uu geliyo walaalahooda Soomaaliyeed meel laga dhibaateeyo ama wax loogu soo marmarso burcadbadeed ama argagixisada la dirar been ah ama ilaahay ku idmaayo 4.5 xaaraana ama siyaasadda koonfurta qiiqaysa waxaas oo dhan meesha laga soo maleeyay tahay ilaahay walaalaha iyo caqligooda ha ku soo celiyo islaamnimadii iyo Soomaalinimadii dadka Soomaaliyeedna meeshaas walaal wanaag badanna way keeneen dib fara badanna way jiraan oo gumaysiga meesha haysta Itoobiyaanku meesha waxa magaca igaad iyo magaca Amisom iyo Baraay ku haystaan iyo hawada ayaga hay'adaha ogtiino waxay lahaan Jabuuti oo Eritrea ka difaacina waana been inajisnimo waxay dhan ciidamada anaga idinoo Itoobiya iyo Eritrea ka difaacina walaalaha iyo nacsinima ku dhacdo marka Itoobiya la isu dhiibay si kastaba sirdoonkoodii meeshii bay noogu yimaadeen Soomaali iyo Itoobiyaankaas kale oo uraagada iyo Tigreega leh aan ka baqayni hataa cuntada inay noo sameeyaan rag Soomaali ku jira ay noo tilmaamaan khatarta aan ku sugannahay iyo in diyaaradda kaliya oo suurtagalka ay tahay in la saaro ay tahay Ethiopian Airways inay tahay maadaama aan taxilnahay Maraykanna aan aadi karin ilaahay amar uu watay ahayd Soomaalidana nin fiican lagama waayo nimankii dhexdoodii ayaa isqabsaday Jabuutiyaanka oo ka cabsaday arrintii qaabidhaga oo kale ba Hargeysa markii la igu soo celiyayne qolka sharafta iyo martida iyo dadka transitka la ima fariisin qoryo inta la igu qabtay Brigadier iyo BKM iyo shiikayaal banaanka la imaanatay balaaya meesha soo gashay ayaa silsiladii la igu dhajiyay katiinadii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun carruurtayda hortoodii wiilkayga hortiisa ila socday wiilkayguna carruurtayduna haddii la soo celiyo waxay dhaheen anagu halkan xamar ma yara xisaabay raabe la marka hore waxay ku dhaheen Jabuuti laga soo ceshay xamar baa lagu wadaa been bayna ahayd xabsiga Hargeysa la soo waday iyo Ersow markaan ogaaday in xamar la ii wadin ayaan waxa ay erkayga baan u dagaalkayga waa kala nabaday xamar hada u socotid anigu halkaan baan ahay aan maartay dadkayga oo dhacaankayga oo wax ku bartay oo dadkeeda ahay oo ana qaadna weelkayga halkaan joogay way baayay asoo jeeda marka walaal katiinadii la igu dhajiyay hubkiina aad moodid inaan ahay adilay fidmahay mingista hayla maaram ama kuwii abwaanadii iyo hooyooyinkii iyo awooyaalkii gowracay Itoobiyaanka inaan ahay marka xabsigii baa la igu riday marka walaal saasay ahayd halkaana marka anagu igamana calaacal igamana aan sheegasho igamana aan caay igamana aan cambaarayn igamana aan adilay fidmahabar waa duco dadkayga aan u ducaynayo aan leeyahay reer Hargeysa walaalayaal dhaqankii la ku bartay Soomaalinimada ahaa islaamnimada ahaa dulmidiidka ahaa qabyaaladiidka ahaa xaraan cunaha diidka ahaa walaalayaal cabdiraxmaano waqtigan ka faa'iideysanay cabdiraxmaano socodkaagan ugu dambeeyay imaaraadka yani saad ku soo baxday isaga yani codsiga ugu ahaa mise isaguna tarxiil buu ahaa anigu codsigayga ma ahayn anigu Soomaaliya u socday waxa cadaatay hadii la gudmaayo inaanan Soomaaliya marka soo bandhigay inaanan noqonaynin hadii la gudmaayo dabcan Mareykankii waa joogeen oo ayagu hadii la gudmaayo meesha yimid doonayeen inaan si nabadgelyo u soo noqdo halkaan imaaraadka ama ka si gudbo ama noqdo ama markaa laakiin ay ku guuleystaan inaan soo noqdo dabcan heelkaygiina waxaa lagu qanciyay in Muqdisho aysan aaminahayn ayaguna taas ay boosteen in maadaama kala duub u jiro xataa Muqdisho markii dambe aan ka baqayo si qalbinaga oo kale inaan dhoomaana ogeyn hadii la gudmaayo marka si kastaba waxay taxil kale inay ayagu gooyaan laakiin وللاسف حتى تجدكي انا يا نادي لا gudmaayo marka walaal lisaas ayaa ku soo noqonay taxil bayna ahayd oo anigu jeer silsiladaysan ayaa laga saaray xabsigii
silsiladaysan ayaa gudaha airportka lay gashay la ibaaray dadkii oo dhan markay fuleen iyadoo askari la socoto walaal gudaha la ii saaray shaqoolkii Jabuuti markii la tarxiilayay warqad ayaa wasaaradda arrimaha guduhu ay soo qortay waxaan ku codsaday sharciga caalamku uu yahay qofka baasaboorkiisa iyo warqadda lagu tarxiilayo saaraa waa la ii diiday maxaa yeelay qorshayaal badan baa ku qornaa in la kala beecsado oo forse laga dhiga ayay ahayd marka walaalow waa la ii diiday marka Soomaaliyay walaalayaal arrintaas khalad bay ahayd Soomaali weyn wax la isku xiro Soomaali dhexdeeda ama Soomaali inay istarxiisho ama Hargeysa laga tarxiilo ama Burco laga tarxiilo ama Caawad laga tarxiilo ama Galkacyo laga tarxiilo ama Xamar laga tarxiilo ama Kismaayo ama Baydhabo ama Beledweyne ama isku samareen walaalayaal ma aqaan walaalayaal عبد الرحمن وحويه waxaan u sheegaynaa طبعا waxaan ku sheegayaa inayna daawanayaan oo ay kula socdaan ku dhageysanayaan ku dhawaad 5,000 oo qof ma dhaweyd waxay ahayd 4,700 imika 4,400 baan u jeedaa oo qof ayaa maxayna dhageysanaya يعني Soomaali daalada caalamka jooga ayaa maxayna dhageysanaya waxaan doonaynaa inaan waqti ka faa'iideysano oo aan dhowr su'aalood maxay kaga faa'iideysano bal aan falanqayntu iyo arrimaha badan aad ka hadlaysaa inoo dambayso aan wax ka weydiiyo jawigii ma garanaysaa albaabka waxa weeye waxaad ku jirtay barnaamij toosa waxaad yaqiinsatay askartii inay halkan joogto albaabkii muxuu ahaay yani waqti kasta ay soo jabin karto bal nooga waran xilligaas maxaad go'aansatay ma waxaad go'aansatay inaad barnaamijka tooska ku sii jirtid ilaa inta albaabka maxaa la jabinayo oo marag noqonayo videogaagaasi mise go'aamo kale way kugu soo dhacayeen oo laakiin waad ka weecatay bal nooga waran laxadaadkaas walaal la gacaliye jeedadoodu waxay ahayd inaan soo bandhigno quruxda Hargeysa nabadda Hargeysa wanaagga Hargeysa ganacsiga Hargeysa taariikhda Hargeysa guddoonka Hargeysa sharafta Hargeysa iyo shacabkeeda ilaahayna marxaati buu ka yahay taasana ku jirnay shacabku say noo soo dhaweynayeen noogu ooynayeen عبد الرحمن waqtiga aynu ka faa'iideysano barakallahu fiik su'aalaha iga jawaabtaan ku weydiiyo marka moogo oo wanaagii shacabka ah xaqiiqdii waxay halmaansiinaysaa markastoo aan xasuusto dilid bay u soo istaagaysa maxaaradu dhibka ii geysatay iyaan halmaamayaa guriyihii laygu jabinayay baan halmaamayaa waxaan halmaansiinaysaa farxaddaas walaalaha ila wadaageen ehelnimadii sokoyanimadii Soomaalinimadii islaamnimadii martisoorkii dhaqan wanaagii naxariistii waraagada Soomaaliga baratay dhibka ii geysatay xanuunkii ay ii geysteen markastoo aan soo xasuusto ayaan halmaamaa walaal la gacaliye marka xaqiiqdii ilaahay barnaamijka live-ka dad badan waa igu naceen laakiin kaamarada tan dad badan bay fadeexaysay ilaahayna ku fadeexeeyay anu meel baan isaga jiray hadda waarar baa lagu soo qaaday ilaahayna ciidamadiisu waa fara badan yihiin wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu dad waxaa jira deegaanka ah oo la socsocda dhaqdhaqaaqa amxaarada wadaniyiin geesiyaal abwaano haliyeeyo ganacsato waxaa dhaqan xumada oo dhan oo jirta la socda jaadka iyo daroogada iyo zinada iyo hobolada iyo qurunka iyo fawaaxishta waxaas in la zuuliyay ahayd skiinka alle oo marti ah in maaragtay albaaba lagu soo jabsho walaal leh xabad iyo qori iyo bastoolad iyo xarig iyo katiirad iyo dhul lagu jiido la qaawiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun cabdimaaligow iyo intayna dhegeysanaysoy waa dhaqan xumo nagu soo korortay haddii ilaahay ku idmaayo marka walaal leh hadda ilaahay baa qadaray iyo walaalahay Soomaaliyeed oo ehela oo step by step habeenkii bay ahayd inay ugu jabiyaan habeenkii uma suurtagelin maalin cadday inay isla markaba soo galaan bay ahayd tilaaban walaala ula socday ilaahayna waa fadeexeeyey de markiina teleefonkii bay iga qabsadeen teleefonkiina waa kuwii shutdown ka dhigay meeshaana xorriyadda qolka ma jirto Soomaaliya oo dhan haddii ilaahay ku idmaayo
Soomaali galbeed marka Soomaali weyn oo dhan kama jirto kadib markii lagu soo jabiyay albaabka xagee lagu kaxeeyay saldhigeeba lagu geeyay walaalo telefonkay horta xoog saareen inay boobaan inay damiyaan Djibouti markaan tagay telefonkii baa la ila wareegay xabsigana waa lagu hayay Hargeysa sidoo kale telefonka softwarekiisii oo dhan baa shutdown laga dhigay Facebook-ay shutdown u yahay waana soo furmayaa insha Allah kii kale aan furmay caawa adilay gudmaayo laga xirtay marka Soomaali waxaa leeyahay miskiinka alle hadalkiisa iyo adilay gudma xaq iyo runta uu sheegayo iyo sawaariikhda 400s ee difaaca Ruushka ee Turku wada gatay iyo gujisiyada iyo diyaaradaha iyo gantaalaha iyo nuclear bombka uga daran Maryam Dasagala iyo Huraale Kenyatta oo aad ii dhageysta iyo liyo booliska iyo Huraale iyo dabaqoodiga jaatuuska uraya ee maaragtay sharaftii iyo diintii gatay ee noole hadalkayga miskiinka alle madaafiicda u ridayo iyo gantaalihiisa ayaa uga daran taasi marka telefonkayga xoogga ay saaraan bay keentay softwarekiisi iyo facebookyadii loo dhaco insha Allah waa soo furmayaan maanta baad ogeyd muddo saacada yar gudahood 70 ku daawatay 1800 qof ayaa share gareysay marka waxa weeye dacbus baa jira xaqana la diraya xaqana dadkii waa baqayaan Hargeysa waa baqaysaa Burca waa baqaysaa Dooram waa baqaysaa Argaabo waa baqaysaa Gabilay waa baqaysaa waxa weeye meel aan baqaynin male dictatorship iyo xoog iyo feer iyo faralaab iyo bud iyo qaad iyo qajajac iyo qashaabiir iyo naag hobolo isqaawinaysa عبد الرحمن وين هدبا waxaan doonayaa ku weydiiyo su'aalo muxuu ahay lagu weydiin lahaa ayaan doonayaa inaan ku weydiiyo waxa lagu weydiin karaa oo la oran karaa عبد الرحمن waxa weeye waxa xusid mudan horta oo aan doonayaa inaan sheego maalmihii عبد الرحمن hawshan galay waxaan doonayaa daawadayaasha u sheego عبد الرحمن maalmihii uu bilaamay ciidanku inay isku dayaan inay ka kaxeeyaan goobtii uu ka cunteynayay ee ugu horeysay waxa la bilaabay isla maalmahaas in la faafiyo muuqaalo hore oo markii uu Mareykanka joogay oo muxuu ahaayay hadallo aan habboonayn kalaha Somaliland iyo beelaha dega iyo madaxweynaha hadda jooga oo markaa aan ahayn madaxweyne videogaas ayaa aad loo faafiyay oo dad badan oo jooga dacallada caalamka looga dhigay inuu عبد الرحمن inuu ka leeyahay gudaha Hargeysa marka ay dadkii daawadeen waxa weeye waxay u arkeen عبد الرحمن inuu khalad galay way laaween xadgudubiyada marka loo geysanay عبد الرحمن waxay u arkeen inuu mudan yahay istaahilo maadaama uu hadalka ku hadlay عبد الرحمن waxa maxaad kaga jawaabaysaa su'aasha oranaysa Somaliland way ku soo dhaweysay waa la arkay ku soo dhaweyntooda kadib adiga ayaa bilaabay in aad waxyaabo yani ay tahay in lagu xiro ama lagu xadgudbo sameeyay arrinka maxaad kaga jawaabaysaa maxaad ku qancinaysaa dadka shacabka halkaas degan ee walaahaya waa dad nasaba oo gob ah oo sharaf leh waana ka xumaadeen xarbi ceeb iyo fadeexad iyo taariikhda u gashay maamulka ayayna noqotay uraagada iyo tigreega noole oo kartidii waxyaalaha aan ku yidhi waxaa kamid ahaa arkay ila soo galeen Ethiopia iyo ay la soo galeen war qabiil baa ku hadlayaa reesha saaqow gaashaamo markii inay ku xasuuqayeen dhasaqi war ninkii idin ooyay anigu waabahay markii dhulbaanta la xasuuqayay ninkii uu ilmeeyay anigu oo fadeexadu soo bandhigay markii laba baar ayr iyo abargida lagu xasuuqay 400 looga dilay ninkii uu ilmeeyay anigu waa difaacay markii marreexan la garaacay anigu waa ninkii difaacay markii Saad iyo Suleymaan dacdeer lagu garaacay oo ilay iyo isaga la gowracayeen anigu waa ninkii ooyahay markii reer Iiraan iyo reer Usamareeb markii reer Ceelbuur markii reer Jawaar markii adilaa gudmaya reer Muqdis markii yaa amhaarada ka qaylinayay Soomaali weyn ayaa ku hay reer beled weyn ba iyo boqol galaxy may tigtiray qallaf usoo noqo su'aashayda war waxaan iska dhiciya rag dalay rag qaarkood waxay yiraahdeen Cabdimaaligow horeyna waa saga dhicnay haddana waa iska dhicnaa billahi baraka mushiri ragii siyaasada ay horeyna waa saga dhicnay haddana waa iska dhicnaa waa socnaa step by step waa socnaa
سؤال شو سؤال نقول عبد الرحمن الحمد لله رب العالمين marka tan hadaan usoo noqdo aniga isaaq gob wey sharaf leh karaamo leh diin leh muslima eelkay dhiigay dhaanka ima xiran isaaq aniga uraaga ay xirtay tigree baa xiray tigree baa jirtishay tigree amhaara maxaad kaga jawaabaysaa su-aasha ku odhanaysa waa lagu soo dhaweeyey laakiin adiga bilaabay hadal ha waa jiraan dad baraha bulshada waxaas wax cusub uga dhigay oo daari calas uu kamid yahay oo soo bandhigay kuwo daahir ma soo bandhigin daahir maan ku arag daahir isagoo soo bandhigaya laakiin dad yow kale soo bandhigayay ma arag anigu ma aqaan dabcan waan arkay cajaladaas inuu sheergareeyay waan arkay adiga arkay marka adiga arkay aad baan uga xumaaday oo aysan fiicnayn inuu soo sheergareeyo marka yani marka dadkii xataa cordoonow lahaa ninkaan hala xiro alla dilo waxay ahayd uraagadii soomaaliga baratay dadka la baashaalhayay waa anigu u sheegay waa aniga ku lahaa war maanigoo reer berbera ah oo afka iyo isirkay waa kan guryahanagii oo reer burca miyaa qotiga iyo tigreega af soomaaliga baratay oo waariyee ku haysa cabdiraxmaanow maxaad kaga jawaabaysaa dadka waxaad ka qancisaa in yani waxyaabo ka dhana somalilan iyo shacabkeeda iyo beelaheeda intii aad joogtay inaad samaysay inaanad samayn waxaa lagugu eedeynayaa oo ay dadka qaar ku leeyihiin cabdiraxmaan waxa weeye waa la soo dhaweeyey haa looma geysteen waxba laakiin cabdiraxmaan uu ka badbadiyey khaladaad buu galay arrinka maxaad kaga jawaabaysaa cabdiraxmaanow walaalow caldoonow beentu aad bay u gaabisaa talyaanigan ama ingiriiskuna waxay dhahaan blame the victim يعني dhibanaha oo la eedeeyo isagii baa dhiban haddana la eedeynayaa waxa weeye aniga dhibkii la ii geystay ilaa hadda anigu walaalahay baa idilay waxay aniga maxaara idshikow waxaana maxaara soo maleegtay haddana blame baa la igu sii darayaa meeshii xaal marin iyo magdhow iyo raalligelin laga siin lahayaa uraagadii dadkii yani dal iyo dibadba uraagadii iyo tigreegii ay ruhaa iyo been iyo dacaayad faafinayaan walaaw cordoonow anigu keligay horta ma socon waxay ahayd maraan amniga la socdo maraan qaybaha kala duwan ee maamulka la socdo maraan suxufiyiinta la socdo alla ilaahay hal habeen oo aan rabay carruurta inaan u tago oo aan masaajidka caalimataan ku tukaday oo dhallinyaradii markay arkeen lifekan ka soo gola igu soo shireen oo igu soo gaceen oo xataa sarta ay ka soo daadanayeen oo si ay igu sawir iigeeya dabcasar ay ka dhacday markii dambe dadkii wadooyinkii xirmeen meel loo dhaqaaqa la waayey markaa amnigu inta yimid haddii ilaahay gud maayo aan si tartiiba ku baxay markaas walaalow waxaan waa been waa propagando waa dacaayad waa psychological war waa qaswul fikri waa ummad iyo maskaxda laga dilayo waa been lagu qancinayo waa dulmiga oo maaragtay la saxiixanayo waa haddii ilaahay dhibanaha oo xaqiisa la inkirahayo xaaraam weeye waxaas maqtaca anigu dadkayga iyo tolkay iyo dadkayga iyo eelkay maamul iyo shacabba anoon u tegin baa walaalayaalow wiilkii nimaan ahay ehelow sokeeyow waa idiin soo socdaa afis baan idin warsanayaa dadkay iyo dalkaygii baan u laleeyahay ilaahay toobadda ma aqbalo walaalow taas waa baab kale ilaahay waa gafuuru raxiim man taaba taaba allahu calayh qofkuna hadduu xumaanta ka soo noqdo ama gefka ka soo noqdane waa xalay dalay sabab loo cayrcayrsado oo loo dhowaabu ahaan jirayne waa khalad waana ceeb waana dhaqan xumo bal waxaa dhaqan xumaa nin kuu yimid oo degaankaagii ah inaad qori igu faanto ama anaa meeshaan kaaga qabiil badan ama kaaga dad badan war hadday hadda somaliland ay tahay qaran dee qaran qabiil maana waa qaran ilaa gudma hadday qabiil tahayne sida qabiil rag baa qabiil maaragta ayagoo maxaaro ah qabiil iska dhigahayay marka duriyadda sheekh isxaaq waxaan beri bay ka tahay dal iyo dibadba raallina kama ahayn wayna ka qaraacmeen waana ka naxeen wayna cambaarayeen wayna ceebeeyeen waxayna u arkeen dhaqan xun oo dhaqanka soomaali weyn ku xun in marti oo ku yimid wax kasta xataa khalad kasta uu kaa galay lala fariisto oo loo caqli celiyo oo la waaniyo oo ilaahay la xasuusiyo janno iyo naar la xasuusiyo teeda kale waxaan ku lahaa cordoonow dhegeystayaaalka warma waxaa idin fiican maamulka muuse bixiyow anugu haddee laamilaan
sheegin oo ma dhihin waa rumaysnahay iyo ma rumaysnin midna ma oran waa xurmeeyey waxay aaminsan yihiin waa u xurmeeyey kama hadlin ma soo qaadin iskuma dirin kama hor imaanin laakiin waxaan ku lahaa war ma waxaa idin fiican idinkoo raali geliya oo xaal mariya oo dembigaas iga gasheen inta iga qanciya oo iga raali geliya aan dalkayga iga tarxiilana iyo dadkayga igu dhex sii daaya meeshaan u socdana aan aado miyaa idin fiican mise idinkoo jir dilay idilay ixeray ixabsiyey inaad haddana maaragtay been iyo huwaa iyo dacaayad iyo tarxiil iigu dartaan waxa weeyaan arrintaas ilaahay soomaali weynay xaaraam weeye waana ceeb waana dulmi waxay ahayd in lay dilay lay jir dilay sida dhaqankeenu ahaa diinteennu ahayd in lay xaal mariyo in lay raali geliyo haddaan khalad galayna waxay ahayd ma keenayso in beerka laga garaaco oo beerka qori lagu garaaco cabdiraxmaan aan kula kaftame ma waxaad doonaysay in inan lagu siiyo inankaan u reebi waayey ordoonow ilan baan rabay dagaal baan rabay dadkaan rabay diin baan rabay waxaan lahaa war qur baan jiray war doofaar iyo qurun iyo bakti iyo gaalnimo ka soo daalnay wareehela waa idin nimid wax walbaan raadinayay ordoonow been buu sheegay gabar ilka casa oo duriyadii baan raadinayay gabar sharaf la raadinayay eerkay inaan la xidhiidha raadinayay inaan aniguna wixii aan dheerahay u soo kordhiyo ayaguna waxay dheeryiin ii kordhiyaan xumaani calaa kullin aldanow xataa anigoo xiran baan la kaftamaya wallah waaryahay waarti xasuuq aad ii geyste waarti xasuuqii hore ku halmaama oo aad sheegataan marka xasuuqa la ii geyste dee kii hore ku halmaama aniguna ku yidhaa dilay fiidbaay marka waxaan taa uga waday cuqdad soomaali inay ku noolaato ceeb weeye erey gabagabaabaan kolley ku siinayaa goordhow erey gabagabaabaan goordhow ku siinayaa aad kaga hadli doontid waxay sheekadaada ku dambeyn doonto iyo qalbigaaga iyo inaad muxuu ahaye waxaad odhan doonto waan ku siinaya laakiin waxaan doonayaa inaan usoo noqdo facebookaagii waxa weeye markii aad jabuuti usii socotay toos baad ka gashay markii aad tagtay dubay waxaan filayaa inaad isku dayda inaad gashid oo kuu suuro geli waayey inaad gashid ama inaad gashayba oo laakiin markii dambe hawada ka baxay facebookaagii macruufka ahaa hawada ayuu ka baxsan yahay si aan ku war hayno mid dambe ayaa jira cabdiraxmaan meela socotaa khadka ayuu ka baxay cabdiraxmaan waxa weeye mar labaad ayaan soo qabanaynaa waad ku jirtaa ma filaya ha waad ku jirtaa cabdiraxmaan ibn cabdillaahi ibn cabdallah atasmacuni ya rajul waayahay raalli hada waxa weeye cabdiraxmaan waxa weeye dhowr su-aalood oo kooban ayaa ku hadhay insha allah waa weydiin doonaa cabdiraxmaan uu soo noqday cabdiraxmaan may maqlaysaa sugaan kugu soo celiye anaa garatay meesha anaa gartay sug haysoo wacen cabdiraxmaan w طبعا cabdiraxmaan waxaan ku wareysanaynaa khadka whatsappka ayaynu ku wareysanaynaa su-aalo aada muhiima ayaa inoogu hadhay cabdiraxmaan aan doonayno inaan weydiino insha allah sheekadan cabdiraxmaan dabcasarna in ay muxuu ahay weji kusoo gabagaboodo bog xidhmay ay noqoto insha allah oo aanu sidaa kusoo gabagabayno noo samra insha allah baaraka allahu fiikum cabdiraxmaan طبعا wuxuu ku sugan yahay magaalada cajmaan ee dalka imaaraadka carabta anigoo muxuu ahay ku wareysanaya khadka whatsappka iyo facebookaba waxaan ku suganahay magaalada dowxa ee dalka qatar waa anigan ku celinaya mar labaad aad baad mahadsantihiin asxaabta muxuaha nala socotay baaraka allahu fiikum shukran jaziilan jazakum allahu khayr waxa weye waxaan doonaynaa in badan inaynu caqliga cabdiraxmaan oo khadkaan ku jirnaa ma soo noqotay cabdiraxmaan
وصون وضيع عبد الرحمن. عبد الرحمن وحن كهذا اللي نسوي مغلي ميسي. سيفي عمرك. وحن كهذا اللي بارك الله فيك فيسبوك هذا من كهذا اللي فيسبوك هذا ميد يعني محي كنت كيد دم بيع عاوة وحتسوق الشيء فيت كيف تسوق الشيء يمكن ساعات واحد تمام يسوى ساعات دم بيع وبكودي يوم هاي يتطبيق منطقة حلقة مقالة دوحة وسقبركي أي ما برتميها بينك أي ساعات يوديرات رافتي مركا عاوة تسوق الشيء فيت كي كلنا هود وكبحي كي هرنا هود وكبحي حقي لك على صحيح ليه محاد عاي قالوا سانكوش غري قفكو إنه حنمدا ودغالمو وبيسديد كل نقطة عرب كيسا gacantiisa adinkiisa uurkiisa intaba waa loo baahan yahay hadii aad sariirtaada korkeeda ku dhimato adigoo isa aaminsan ahlu jannaata haddii ilahay gudmay gumaysi diid adigoo ah dulmi diid adigoo ah qabyaalad diid adigoo ah qurun diid adigoo ah dabanilif diid adigoo ah dabaqooni diid adigoo ah dalka dadka diinta adigoo difaacaya god lagu rido waa waalan yahay lagu dhaho maad mulla lagu dhaho meel daran lagaa tuuro xabsi tarxiil wax walba laysugu kaa daro walaa tahinuu walaa taxzanuu وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وحاوية دب الرجال يمد كدرن بايستر يعبسي يولول يفرينيم يولبها عرفت أنا ضدك الصوماليات باهرية وحاوية المركع عبدونه ولا لقى علي فيسبوك إن شاء الله وكي وحاوية وحوكوهرنا تلفون كي مريكا سوفتي ووركي السيستم كي تلفون كي شبنا وكدقين إن شاء الله يعني كود بالي صدره وفرم دونا إن شاء الله تعالى مكان كنا نقطة بريكا وأنت لكم إن شاء الله تبغى فرو يعني كم كلام وحويا هذا وير بيورانه ويقول أيام يتقربوا أمي الصب يبلغ يباس ما نشقين سواها إن شاء الله تعالى خبيرنا يا متخصصين أقوم تقوله هذا هو كمتها دمان سومالوي إن شاء الله وقرب استاقي دونا انت كورنا إلهي ما رتي نقرب استاقي دونا وعلى الله سومالوين وعلى الجواحل لقي الميديا وذيك سرعين إنا كنت فعلا ضلكينا دينتينا هودينا ما انتي وذاك السنة سرعلي ولو شروط لقو سرعلي أيضا اللعب هاي هنا اللعب نبقره وحر أي نقطة هودينا يدولكينا يشد الصومالوين إنكم بيس اللي دي رد لسكدوا حرية لسويرو نفتا وضع الساعة إلهي لغيابه مركز صار لي قبيل أنكوري مد يقويس أنكوري مد إيادي لا يكويد ما يشلف أنكوري مد يدقان أنكوري مد مابل أنكوري مد مجهول وهي يقول راعي وراء يرقص يقول عليه دباتي رايي على وشغي رايي إنا حق شيء هايو ورقسيال نقطة أما تشويوة أما الطاقة أما الطورة أما البيضة أما قلقشة وردحالكي آبيالكين يقولكي نبط يبري يا وبا هقدننا ورهقدننا النعمة ألا ينسيي إلى الصدى أو ورديي الدين كوا حرامتا الدورو حيلا صوركي وحاوي سعر برنك يقاجدا يبطالدا يشغل آنتا كوح يربا ماشا يسطا كوح ير شعبويني قاجو يسرع يسحرين أي اللودلي قرط الآن وهذه مساكين تصوص ورايا اسبتال الآن بيا الآن وعنت الآن رفات ككتيرة إلهي نوعا كبر إياه ضدك هالكاس أدلجوك دي قدر إن أي فامان ضدك متشد الصومالي وين اللي بعطيسم دينها إحسانك يصرفلك إني كسو قرب قران أردونو أو جمعية دا براكيسان أي سو قرب قران بل إلهي كبر يا إياه عبد الرحمن او سؤال باندوني انا كويديو انك دون انا وقتي كيف هذا سنه سؤاله ان الله فيسبوكي marka wala la waasano waaya dawaal iga xirtay ki caawana waa laga xirtay ان toddobaatan iyo 9 kun ba dhowr saacadood 2 saacadood daawatay 1800 oo qof 1800 oo qof ayaa sheergaraysay فيليبكي أبوبي تعال تدخل أغير أيكو قبان أغير أي طبعا مركب ولا واقعهم نهاي وتجار السعودة
oo meediyaha lagu dagaalamayo dhaqaalaha lagala dirirayo ganacsiga lagala dirirayo wadaniyada lagala dirirayo عبد الرحمن وان فهمي waad ka jawaabtay su-aashaas waxaad ka jawaabtaa su-aasha ah may maqlaysaa cabdiraxmaanow waayahay waxaa la sheegayaa oo kale maxaad kaga jawaabaysaa su-aasha odhanaysa cabdimaalik sheekh muuse coldoon ayaa ku keenay oo muxuu ahaayey kugu ballamiyey halkan oo tigidhka kaa bixiyey si aad ku timaadid hargeysa waxaanad muxuu ahaayey wadeen mu'aamarad ka dhana somaliland qarannimada lagaga soo horjeedo waa mashruuc xamar laga soo maleegay arrinka saa u weyn baa la sawirayaa maxaad kaga jawaabaysaa walaal gacali ilaahay khayr ha ku siiyo anigu Ukraine oo midowgii Soviyetka burburay ayaan aaday to be honest with you fikrada iga dhanacsanay the most beautiful brides in the world arusadaha adduunka ugu qurux badan ayaa meesha jooga Soomaaliya dhan baa weydaan Ukraine ayaan aaday markaan anigu aan tagayna haddii ay ku idmaayo barafkii aan ka tegay baraf shanjibaar ka daran aan meeshaas aan ugu tegay luqadii aanan aqoonin culture kala duwan gabdho muslimaad oo fiican ay joogaan laakiin dee waxaa weeyaan dhulkiiyo dhul gaala ah Soomaali ka guursatay aan arkay haddii ay ku idmaayo caruuroodisay noqdeen isay ku dambeeyeen marka waxaa ku leeyahay cudoonow xataa aan isku dayay inaan dubaya kaa soco wallahi waad iga qaban weyday imaaraadkan kaa socay wallahi Ukraine waad iga qaban weyday waxaa igula taliyey inaan hadda laga yaabo inaan dhegeysanayo beeraha barta oo reeshi bani isxaaqa duriyadda ah dal arday jaamacadda ka ah meeshan igu soo dhaweeyey ayaa igula taliyay xataa hargeysa inaan aad waxaa weeye marka cudoonow anigu ma jirteen iyana uma tegin dhulbaantana uma tegin wasangelina uma tegin bareexaana uma tegin awiyana uma tegin raxweyna uma tegin umana tegin haddii la ku idmaayo deegaanadii haddii la ku idmaayo Soomaali weyn midna uma tegin beesha rees Isxaaq iyo Hargeysa ka soo tegay waa ceeb iyo caar bay ku tahay in martidooda amxaara ay xirato haddana ku been abuurato haddana disho haddana taxiisho waa ceeb waa dulmi weyn dulmiguna waa dhulumaatun يوم القيامة ولكن عبد المالك يا أنا أدعو شرقنا إسكمانا إمام لباتنا إسكمانا إمام بل وديوان ليسي عجلت هذا قدام بيسي تيور سيدتم ودبيين وحين الأحمر ودبيين ساعتها السنة مدي ساعتها كلا تغني سردوك يا أمنك يا أمحارة يا لي بوليس ولا السعودان مركب حويان عبد المالك شط الصومالي يؤمن سيهاي وما يسديد ويه waa qalbi dhagax oo kale maskiinka allana waa qalbi dhagax 3 iyo qalbi dhagax 4 weeye waa isku fikrad taas waa dhaqanka lagu yaqaan gumaysiga iyo gumaysi raaca ingiriis markii sayid maxamed uu ka soo degay berbera casuurta keen bay dhaheen marka waxa weeye inta kadeenina maxaara caawa haysata maskiinka allana laga tarxiilayo cabdimaaligow iyo dacaayadna loogu sii daray walaalo waa dareemaysaa hargeysa maxaara dhooban barbaray dhooban tahay waxay dhooban tahay cabdiraxmaan waan kaa dhex galay weliba aan halkaa muxuu ahay xoojiyo waxaa xusid mudan aan la wadaagno dadkayna daawanaya 3200 oo qof aan u sheego xafladii caleemasaarka waxaa ka soo qayb galay caleemasaarka aan u jeedo waa xafladii caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi martidii ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxda dhulka la haysto ee loo yaqaano dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ka soo qayb galay qaar ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka dhulkaasi iyo mid ka mid ah wasiirada dhulkaasi oo loo yaqaano Khadar Cabdiwaninka dheer mujrimka ah waa horena looga dhiibay dad masaakiin afar dhalinyaro oo beesha ogaadeena 2 sano ka hor bishii 2015 Facebook-ga dib iyo xasuusiye oo hadiyad ahaan loogu dhibay isagoo ka soo qayb galay xuska
maalmaha qowmiyadaha Ethiopia mujrimkaas oo yani dadka qaata oo jeelowaadan ku rida Khadar Cabdi oo dheer oo wasiirka ganacsiga iyo muujigaadiidka waxa uu yahay waxa kaloo kamid ah marti sharafta timi marti sharaf ma bayna qowsayn gacan ku dhigla sharaf ma lahayn waxa kaloo kamid ah Cabdiraxmaan laba goole waxa uu hayaa xilka taliyaha guud ee ciidanka liyu booliska ciidanka mujrimiinta Soomaaliland xuduuda dheer aynu la leenahay iga raalahaada xuduudan wahmiga lama leeyahay maxaa Ethiopia dhulkan waa dhul Soomaaliyeed araadi muxtalla waxa weeye lama yiraahdo dhulka Ethiopia ama Soomaalida Ethiopia laakiin waxaan oran karnaa dhulka la haysto waa dadkii xasuuqay waa dadkii Cabdiraxmaan laba goole waxa weeye waa mujrimkii geystay xasuuq badan aan xasuusiyo dadka reer Somaliland aan si gaar ah u xasuusiyo xasuuqay geystay طبعا way badan yihiin oo ay Soomaali ka geysteen laakiin kuwa Somaliland ma si gaar ah waxaan u xasuusinayaa xasuuqi jaamacad Dubbad dad badan oo reer Burco u badan baa lagu xasuuqay beelaha Habarjeclo iyo Habaryoonis ayay u badnaayeen dadkaasi waxaan xasuusinayaa reer Somaliland ma xasuusinayaa 23 qof 22 dhimasho 23 bay hayaan sida tirada aan ku xasuusto 20 baa dhimashaha ilaa 22 dhaawac ugu koobnaa waxaan xasuusinayaa ragii taliyihii geystay xasuuqa geystay wuxuu ahaa Cabdiraxmaan laba gool wuu ka soo qayb galay xafladii caalamisaarka wuu ku damaashaadayay Hargeysa mujrimiinta noocaasa in maxkamadaha la geeyay ahayd la qabto ay ahayd laakiin mujrimkiina uu ka soo qayb galay Cabdiraxmaan Dabcasar oo reer Berbera oo muwaadin reer Somaliland marka dhinaca laga eego shuruucda Somaliland u taala isagana waa la tarxiilay taariikh bay isqoraysay in Soomaalidu istarxiisho taariikh bay isqoraysay in Soomaalidu ay isdhiibto oo macruuf ah way noogeen qalbi dhagaxna way noogeen iyo wuxuu ku dambeeyay taariikha noocaasa ayaa maxay Soomaalida maxay dhinacooda maxay iska qoraya aan idin xasuusiyo mar labaad Cabdiraxmaan Dabcasar oo Soomaaliyana waxa weeye jeelku ku jiray waa la tarxiilay laba goole oo xasuuq ka geystay jaamacad Dubbad ila waxa weeye waa la xasuuq waa la soo dhaweeyay Cabdiraxmaan oo ma igu jirtaa khadka si fiican walaalkay waxa weeye madaxa lagu soconaya intaasan ku sheegaya kaliya in bil maqlub yani loo soconayo runtii sidii wax lagu qiimeyn jiray baa luntay qiimeyntii baa maxaa ay luntay ii wad halka si wada waan ka dhex galay wad midaas anoo kuwa ayilaya mid ragii xabsiga ila joogay andahay ma dhahayo adila gudmaayo oo qaarkood diidana in la dhoofiyo Ethiopia iyo kilinka maahan Soomaali galbeed xoog lagu haysto ilaa sabab la dhoofiyo ba wuxuu yiri waa ka xunahay laakiin waa amar sare nooga yimid kulligood hatta saraakiishu soo ilaayeen kor nooga yimid kor buuga siimid wuxuu yiri marka la dhoofiyo dhibaatooyinka waa u jeedaa iyo rafaadka dadka iyo hasta iyo anigu hadda iska limaanay kaajaysan marka la dhoofiyo waa iska warano seetahay waxaan dhaabu yiri dhex soconnaa waa dhaabi ma garad hay wuxuu ka waday yani xaran kama qaban karo dibnada baaska u jeedaaye waa iska dhex socdaa dadka ka raacdaa mushaarka u ka raadsadaaye waxaan raali kamay waa iska dhex socdaa balad ordoon ummadda Soomaaliyeed rag bay hadday rag lahayn dumarka Soomaaliyeed ha istaageen ha ciideeyeen ha cambaarayeen ha caayeen ha dhagax tuureen kuwa qabyaaladda iyo qurunka iyo isku dirka iyo nijisnimada iyo shisheeye kalkaalka ku shaqaysanaya waa la diidi karaa qabiil walowba haddaad xor tahay dalkaaga iyo dhaxalka awowgaa iyo deegaanka aad joogtid shaqta Soomaaliya difaac Tigray iska dhici new boys gumaysi diid culummadu maxay la aaminsan yihiin waxaan halkan uga mahadnaqayaa sheekha kaliya oo aniga xabsiga igu soo booqday asagana xataa uusan geli karin oo uusan ii ogolayn loo ogolayn inuu i arko ama ii doodo kaliya inta soo istaagay xabsigii moos iyo biyo iyo cunto ii soo dhiibay Sheekh Mustafa Xabs Ismaaciil
جزاك الله خيرا بارك الله في لما جير أيو عنتو بان ugu farxay yani hatta booqashada walaalkaaga aad xabsi booqatid haddii aanan hatta qiyaasayo maaragtay inuu dadaal badan u muujiyo jazaaka allahu khayr baan leeyahay sheekh mustafa culimmada kalena waa baqayaan dadku waa baqayaan afka laga tolay waxaan idin leeyahay walaalayaal dalku waa dalkiinni nimanka kuraasta fadhiya meelay ka yimaadaan ina aqoon qurba joog iyo xaara joog ah in kama lahan dalka idinkaala shanta soomaaliya dalkiina difaacda la xisaabtama ha baqinina dumarka budh baa la dhahaa anigu waaba naxsanahayba nin budh waa hooyaabanahayba budh baa la dhahayaa dumarkii gabdhihii maaragta dhalinyaradii yani marka waxaad moodaa israa'iil in la joogo yani xaaraanta falastiin waa nicmada ha la ilaalsado ilaahay ha laga yaabo rabbi ha laga yaabo ha la walaaloobo soomaali aayaheeda ha ka tashato إن شاء الله وحوي عبد الرحمن وحين كبحنا هالضبا سوي سين كير بحنا social media dhalinyarada Soomaaliyeed ha isku caayina ha isku mashquulina intii ii dacwootay intii ii doontay intii hada shay adigu waad ka mid tahay koow ka mid tahay jazaak allah khayr yatiimkaagii meel kastoo aad joogto واران كلها كفتبه وار عبد الرحمن war doodaadii waa la igu haystaa doodaadii waxa weeye imika anigu meeshii kuma laaban karayo waa xadhig bay diyaara waxaan leenahay cabdimaaligow insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'immatan wanajcalahum eesh alwaarihiin fircoon kuwii uu tabar yaraystay oo gumaysanayay oo daciifsanayay ayaa ilaahay yidhi waxaan rabnaa inay dhulka dhaxlaan ha xasuusteen kuwa amxaarka iyo tigreega iyo gumaysiga iyo booliiska u shaqeeya waalcaaqibatu lilmuttaqiin alaa ina nasra allahi qariib ahasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamanna wahum laa yuftanuun waxa weeyaan muslimiinta dhabta ah ayaa guulaysanaya wadaniyiinta xalaashaa baa guulaysanaya wa ina jundana lahum alghaalibuun waa fashilmayaan tigree waa burburtay hadday oromo iyo soomaali isku baabi'inaysaa waxa weeyaan oromada muslimiinta walaalaheeda inay xasuuqayo doonayo inuu ay ooda soo jabsadaan oo ilaa hargeysa iyo berbere iyo bandegadaha kale ay qabsadaan ilaa xamar ilaa kismaayo ma dhacayso oromo ehelka yaa tihiin ku jeesta amaarada xagga u sii jeesta ehelka yaa tihiin nadaayo walaalayaal waxaan leenahay markaa nimanka dabaqoodhiga iyo xaaraanta ku socda waxa weeye tuwaqlaq markii la gaarataan iyo daroogo iyo khamra loo fadhiista wax horumara iyo technology iyo tacliin iyo caafimaad iyo biyogelin iyo koronto iyo beero ma jiraan shaqagelin dhalinyaradii bataala gaajo silic sicir barar waxa weeyaan adiguna waad guulaysan ahlul xaquna waa guulaysan soomaalida geesiga halyeygana waa guulaysan reer muqdisho qabiilka iyo qurunka iyo mooshinka xaaraanka iyo qaraxa iyo qaracanka ka gudba heshiiya midooba reer koonfurow walaalihii reer waqooyi diyaar bay idin yihiin magdhow siiya xaal mariya wax kastoo ku qancaan u ogolaada madaxtinimo iyo caasimad iyo wax allaala waxay rabaan u ogolaada walaalaha weeye na jecel ehelkeena dhiiggeena dhacankeena sidaad u xaal marin lahaydeen u maaragtay uga toobadkeenlayd khaladkaad ka gasheen idinkay idin taallaa anigu waa maskiinka alla boqolkii shanta soomaaliyana xasuuqii iyo dhibkii iyo rafaadkii waa ka raaligelinayaa عبد الرحمن وين كبحنا سويجن سيريس كان ينو عبد الرحمن واحد دونينا وحوغان كل يركب تمه أنا تسوي غير بدله بقر كان ترى شنطة الصوماليات ياكو عمامة ذي ده ما دورتي دور شو يصير هاي تبقى نوفمبر اللايف كادو جرنا soo saari lahayn walaal waa taga banaan weeye
aan qabtay kumeel gaarne aan u sii hayo waa jagada kaliya aan qabtay oo bannaan wixii kale laandhi iyo qabiil laandhi iyo hebel laandhi iyo belal laandhi waa la isku haystaa midda aan laygu haysan waa midda tan waana laygu caleema saaray waana laygu caana shubay aniguna waa u istaagay United States Federators shaqada Soomaaliya aljazeera Soomaaliya Somali Peninsula waa daljira waa xaqiiqa loo baahan yahay shaqada Soomaaliya NFD Soomaali galbeed koonfur waqooyi Djibouti inay rag iska dhigaan dumarkuna ragga ciideeyaan gumaysidiid la noqdo hawshana xilka anaa sii haya allaale iyo ciddii sharaf iyo karaamo iyo geesinimo iyo wadaniyad iyo xalaal iga cod karsan iga diin badan iga akhlaaq badan waana jiraan inaan ku wareejiyo diyaar banahay dictatorshipna maahan bishardi inuu dalka iyo dadka iyo diinta uusan gadaynin daacadda yahay hamigiisuna uu yahay high ambition iyo himma caaliya shanta Soomaaliya xor ah oo midowday oo xor ka ah jaajuus iyo qurun iyo dabaqood iyo dabadhilif iyo عبد الرحمن هادو الله كويد ما هيو سليت سيتوتي وحي كلام مسكا دايريسا ولا waxa weeye ummadii dhan ayaa hiwaanisay waxaan halkaan uga duceynayaa Soomaali weyn dhammaantiin Ilaahay dad diin dunyo darajo adduunyo mid aakhiraba Allah idin siiyo culimo iyo caamo madax iyo minjaba adigu baad ka mid tahay intiina hiwaanisay iyo aqli celisay inaan qowl sadiida oo fiican ku hadlo inaan qowl sharaf la ku hadlo inaan maaragtay xikmad ku hadlo inaan aqli wanaagsan soo bandhigo inaan wax waxtar la soo bandhigo inaanan wixii dhibaato iyo dhaawac Soomaali ama qabiil ama qashaabiil ama cantarabaqash aan iska daayo haddii guurka iyo wanaagiisa iyo jacaylka iyo sharaftiisa iyo cudurrada iyo zinada iyo waxa laga qaado aan tilmaamayo si sharaf la u soo bandhigo haddii kalena aan iska daayo si gooniya waxaan ugu mahadnaqayaa carruurtayda gaar ahaan gabadhayda Maryama ilaahay ha xifdiye carruurtayda dhan Allah xifdiye oo xaqiiqdii waanooyin qalbiga iga dhacay ii soo jeedisay yani igu oyday xaafida likitaab ilaahi kitaabka ilaahay xifdisan jaamacad ka dhigata Hargeysa ma sha Allah وطونتا علمك حفظها إلهي حفظي دمانتود sidoo kale wiilkayga Yaxye iyo carruurtayda dhammaantood waalidkay qaraabaday hadeer taano halkaan aan joogo aan u mahadnaqayo ehelka aan la joogo ma sha Allah Allah jazakumullahu khayran Soomaali weyntay soo dhaweysay marka walaal waxaan insha Allah taala rajaynayaa wax Soomaali weyn anfac u leh sharaf u leh anigana aakhirada adduunba magac adduunna aan ku helo oo ka fiican kii hore farxumada ahaa waxyaalihi tilmaamayay insha Allah taala qof kasto cajaladaha iga jarjaray ama wax kale ku arkayna soo bandhigana zuuliyo anuguna taa codsanayo insha Allah inta cimriga iga hartayna halgankaas dheer ee shanta Soomaaliya ay ku midoobayso ku xoroobayso gumaysi ku diidayso ka shaqayn doono marka ma sha Allah waxa weeye waxyaabahan kugu taageersanahay oo anigoo Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon runtii in badan waxaan sheegay inaan anigu aaminsanahay Cabdiraxmaan Dabcasar waxaan aaminsanahay in wax badan uu ummadda tari karo waxa khaldan laga reebi karo xaqiiqatan waxa weeye dad badan waxay aaminsan yihiin inaan yani boqolkiiba boqol sidaada aan kugu taageersanahay laakiin in badan waan kuu sheegay waxaan ku wadi waxa weeye garabkaaganahay laakiin labadaa shay ka tag waxa weeye waad igu raacday yani muxuu jahran iyo sirranba waynu sheekaysanay garabkaaganahay waxaanan ogahay in badanoo wanaagsan ay kugu jirto waxaan doonayaa in aad dhabada toosan dadka ku hanuuniso waxaan aaminsanahay inuu ilaahay xikmad ku abuuray oo aad qof tahay oo aanu ilaahay cadaab kula rabin oo uu khayr kula rabo waxaad ka wanaagsan tahay kuwa badan oo daba dhilifa waxaad ka wanaagsan tahay kuwa badan oo dhiiga daadiyay waxaad ka wanaagsan tahay kuwa badan oo khawan ah waxaad tahay ehludiin diin badan baad haysaa qaaribaad tahay culum badan oo diinta ka mid aad haysaa waxaan kale waa shay taari ah oo kugu yimi haddii ay noqoto labadan arrimood aan kaa waaninayna waa kuwa aad ballan qaaday oo aad ka tegaysid waxa aad inoo ballanaa runtii inaad mahay wax wanaagsan ka shaqaysid waxa ila soo xiriiray oo aan doonayay maalmahan safar baan soo galay waxaan waraystay habeen maalintan soo baxayay iyo maalin ka horeysaba nin ku yaqaanay oo magaciisa aan liqsanahay oo ii duuban
oo codkiisa aan oo kula reer Mareykan ha oo kula jaaraha oo kula magaalaha oo kadibna aad ka yani magaalo kale isagu u dhoofay oo aan hadhowta ku sheegi doono waa nin weyn codkiisa nin weyn baan dareemayay yani wuxuu ka bixiyay sifooyin aad u wanaagsan Cabdiraxmaan wuxuu ayuu ka sheekeeyay waa intii aad jeelka ku jirtay marka waxa weeye wanaag badan baad leedahay anigu Cabdimaalik ahaan runtii dad badan oo muxuu ahaay waxa weeye way igu diidanayeen way igu dhaliilayeen inaan ku difaaco يعني محوها waxay arkayeen inaan khalad sameeyo waxay doonayeen inay iga weeciyaan ninka dulman baan ku arkay ninka dulman ee